naadir wuxuu noqon doonaa xal waara looga helay waddanka dhan markas aniga wasaaraddeeda waxay garab taagan tahay gobolka Banaadir aan la shaqeyn doono si dhab ah sababta waxna wada quseeyo waxaana kale oo madaxda kale oo dawladda waxaan ku casuumayaa inay meelahaas ay soo booqdaan isoo kana xaaladda dhabta ah marka ninka barakaca inuu xuquuqdiisa markas la ilaaliyo in afarta sano soo sheegay gudoomiyaha in xal waara looga helo dadkan dhibka laga bixiyo dadkan dad shaqeysan jiri ما عدد dalxiis u yimid inay soo degaan gobolka Banaadir waa dad dhib ka soo cararay dad dagaal ka soo orday hala soo nawanay integration alma barka dadkan waxa soo bixi dad oo maxaa yiraahdaa bari noqon doono dadka wadanka u talan lahayd waxaan ku faraxsanahay inaan daahfurnay xafiiskii u qaabilsana arrimaha barakacayaasha oo sidii xal waara loogu heli lahaa muddo ayaan soo wadnay qorshaha sidii barakacayaasha xal waara loogu heli lahaa waxaan diyaarinay siyaasadii iyo qorshayaashii haddana maanta waxaan soo bandhignay xafiiskii howlahaas fulin lahaa annaga qorsheenu wuxuu yahay ama aragtideena fog in 4 sano gudihiisa qof kastoo barakaca oo barakaci ka baxo uu noqdo qof hooy leh qof dhammaan xuquuqdii bini'aadanimo hela waaxda muhiimka ah waa shaqadoodu noqon doonto sidii xal waara loogu heli lahaa dhibaatada barakacayaasha shacweynaha Soomaaliyeed meel kasta oo joogaba waxa uu waayay arag u yahay in qof kasta oo Soomaali ah anigana igu dar oo uu barakac soo maray 2.6 milyan oo Soomaaliyeed ayaa la aqoonsan yahay in ay yihiin barakacayaal dalka gudihiisa ku barakacay 1 milyan iyo wax la jira waa qaxoonti Soomaaliyeed ama dibadaha ku maqnaadaan qaxoonti wadamada jaarka iyo wixii ka taloosan baha ahaadaan ama qaarkood ha soo noqdaanba 500 oo kamid ah oo kun waxay barakacayaal ku yihiin haddaysan ka badnaynba magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir qurba joogaha maanta waa barakacayii shalay waa qaxoontigii shalay jinsiyad kasta ha haysto Kanadiyan ha ahaado Jarmal ha ahaado Talyaani ha ahaado Faransiis ha ahaado Yuruban kale ha ahaado